حبيبي كحردن لافتيدا حياتي كنو الحسكيغاي. بسم الله الرحمن الرحيم. أصحاب تقاليق ميل كستا جوجتان أدياد بندي سلامنا مسيس حيس حرقو iyo cawaale aadan aad baan soo dhaweynaya cawaale aadan iyo Mrs. Xarago markii ugu horeysay in kastana xiis aanay ku cusbeen channelkayga haddana cawaale aadan ayaa nagu cusub caawa waana lamaanihii oo isku duuban aad baan soo dhaweynaya marka hore waan dhawnahay 100% waa isku afuun xiis ma gudbeene agaasi warku ku xidhay bas hadalka lagu noqonayo waayahay waxay joogaan magaalada Hargeysa wadooyinka ugu dambeeyay horta bal ka waran sidii leedii ku soo dhaweeyay magaalada Hargeysa showgii qarniga ayaa idin dhacay asxaabtiini ayaa jawi degan la qaadatay bal arrimaha ka waran wallahi lagama hadli karo si fiican loo soo dhaweeyay way masha Allah boqol aadiya dadkina soo dhaweeyay dhamaantoodna waan uga mahadcelinaynaa aadiya kulli toolayntiina soo dhaweysay wuxuu badnaayeen حاجة أصحابتي قديمة واي حوالي أنا وحو دور تشربورت مقالة هالقصة شو قبطي لكن شو جوا وكدونا يو سقى حيس وتا أو لما أنا أي وشو جاي كورن ما دام شو يدي هو يكون عشرة وكدونا كني لا ما هذي كردي يا كان وا نفته يقول له بيك دعم نفته يقول له بيك دعم واي هاي ما دام أو هذا الكسوفر ستان أنت بدن وح فنانين تسوى عسونو ayna la wadaagan codadkooda macaan inkastoo codadkiina aan laga hadli karin ma sha Allah bal waxaan soo dhaweynayaa heestii aad marwada u qaaday ee bulshada Soomaaliyeed oo dhan qabsatay ee meel kasta waxaan ku ka dhacday heesta barota jawgeeda ka waran markaad dhageysanaysaan ama markii aad aragteen dadkii Soomaaliyeed oo xoog ay u qabsatay wallahi kulli aniga dareen iyay magaranaysaa iga yimid bahayd way waxay ka hadlaysay gebi wada run bahayd way waxa ii tahay inaan ba og ma sha Allah kulli dadka adan saga sheego oo laga ceeriyo way marba in laga ilayo way marka kulli waxay ahayd wax run ah oo aniga inside gudahayga ka yimid way xiskaan dib wixii ka dhacay niga arkay aadiya lagama baahan karo way bal ka waran hadaynu caawa yar dulmarno والله وانتو العررينا كل ما مرحبا وي مرحبا حيسي كوي نعبا كولان كلابدينا ايه ايكو حولنا كلا جيتينا مكعاكو فين مانتا علمكو سيدين مانتا فرحدان كفاحينو مكويا مانتا absolutely وي عاو halkan horta wareys badan ma na soo fadhiisan lamaanu maadaama ay ku baashalayaan magaaladoodii waxaan jeclaystay bal inaan dub xasuusno heestii ugu horeysay ee wada qaadeen xiis markaad ka degtay magaalada Jigjiga ee joogi jacaylka lahayd heestan ku xaday heestan ku xaday dadku waxay yiraahdeen heestaas ma jacaylkooda ku bilaabmay mise walaaltinimo ku bilaabantay wallahi orto qeyrkay waa dhaafaya may waa laga horeeyay way weydayday way harabahaygo ya kurisa harabahaygo barta codka aynu galo in yar waxay ahayd oraahdaada macaani aad baan kugu raacay wajidmo dakartii eeba ku siiyo aqoontan kugu raacay ummad weeyi dadkeenu inba meel ku aroorte isiraan garanayo abtirkan kugu raacay isiraan garanayo abtirkan kugu doortay ma sha Allah heesta cawaalo maadaama tahay heestii ugu horeysay wada qaadeen bulshada Soomaaliyeedna ay runtii hees si fiican u gaadhay ma markaas uu jacaylka xiriirkiina jacaylku bilowday mise walaalunba waayadaaba anna goonideeda u qaaday wallay helo wallay haya sida hawdaago ma sha Allah anigu cawaale aadan heesiisa heesa badan aan xoog jeclay baa jira waxa kamid ah heesta leedo idile ayaan bal heestaan ku noqono way xasuusanaa idile ayaan idile ugbaad
idil ayaan aqligaygii ambaqad wadada ilinkii saxdo abidka adigu wii ilwaadsamo oo agabsaniyo aayatiin la hawe waayahay balxiis laftarkeeda cawaalan buu badda ku koomeeyo xaggan isaga iga soo xigo waana isku af moogtay saa darteed baan uu hadalka inooga soo gudbiyey xiisida laftarkeeda iyadoo keliya ba hargeysa ma jirtay bal ka warra jawigaaga maadaama aad odaygaagii cawaalaad gacanta haysatay magaalada hargeysa ku baashaaraysa maasha allah aad baan ugu faraxsanahay anoo xaajkeygii iyo lamaanaba aynaan iska mushaaxa aad iyo lagama hadli karo xiis laftarkeedu hees bay markii dambe arooska kadib ay soo qaaday nasiibka isaacida leedahay heesta lagamaba hadli karo waa layidhi bal heesta aad iyo aad bal heesta ka yara war heestaa warkeeda uu dhan yahay way oo dee xaajigaa gabayga iga xidho erin lay sameeyo masuutiila waayema ka soo jaraan islaayo laakiin jaritaan ugu dhow bal heesta codkaagii macaanaa ee dahabiga ahaa masrigii aan sugayayo naqrooba iyo curto neecabay marig udgoon nasiibkan isaacido naruuradiisida nasiibkan isaacido naruuradiisida aad sheegide waa barbardhacay yaabta barbardhacay kaasay ku xidhantay cawaale aadan baan jecelahay hal heesoo markaa ugu dambeysana sida codkiisa macaan heestan dadku aad iyo aad bay u jecel yihiin waa heesihii uu baryahan dhexe soo qaaday xabiibi baa la idhahdaa horta xabiibi maanta qisadeedaan kaaga sheekay waay dadku dee kulley nin iyo suud rabo u macnaystay aad iyo aad laakiin anigu siday qisada ku timid inanka ituma waxaa la idhahdaa amiin daauud waay inankaabaa waxaa dhacday qisad buu iga sheekeeyey isagoo music ay tumay waay wuxuu igu yidhi markaa qisadu markay dhacday anugu maba joogin Jabuuti Canadaan joogay waay markaa wuxuu igu yidhi gabadh Tigray ah oo Jabuuti timiday oo aad u qurux badnayd iyaan guursaday waay wuxuu yidhi markaa gabadha waa la isku leynayay oo rag badan oo magaranaysaa dinta la iska saaray waay isagaa gabadhii baa jeclaatay isagii bay jeclaatay isagii bay jeclaatay maasha allah nasiib badana marka isagaa iga sheekeynaya waxaan isku baranay meel night club maasha allah yaan gabadha isku baranay then gabadha xidhiid baana dhex maray gabadhii ninkii way jeclaatay oo fani marka si ay isku guursadaan waxay ku tiri maxaa shuruud ah hay wuxuu ku yidhi anu muslim baana hay gabadhi way muslimtay diintii baba diintii bay soo gashay diinta islaamka soo gashay waay way shareeratay waay qur-aankii bay waa baratay inantii la gaari waayey marka mucatabkii waxay way tuurtay waay gabadhii marka dee inankii iyo gabadhiina dee waa kuwa isqaba soo ma aad iyo wixii dee alla siiyey bay xaggaa dee ku cunayeen waay oo dee arsaaqi dee ilaahay u qoray dee waay aduu noloshooda iska fiicneed waay dee saaxiibkii baa suuqa laga kari waayey ciyaarihiisii bilowsii gabadhii baad heshay isagaa iga sheekeynaya waay markaasuu hameenka markaan soo hoyday buu yidhi iyo gar ii fadhiisataa waay tiraa diintii aad yani gal igu tiri dee sidan aad u dhaqmaysa mayba dhigayne si kale dhigaysa garan maxaa qaldan maxaa qaldan markaa gabadhii waxbayna hadal kugu daalin gabadhii maalin maalmaha ka mid ah dee waxay tiri isagoo hurda iyo ka socotay waay dee uu soo kacay markaasuu arkay meeshii degalaangelina oo dharkeedii guratay waay suu dee gabadhii xidhiir buu ka doondoonay raadiyey uu raadiyey xidhiirkeedii u waayey oo kasbisi haa 2 sano kabacdi iyo xidhiir ismaqleen waay marka 2 sano kabacdi markay ismaqlayaanna waa maruu guursaday waay oo carooskiisii bay ka aragtay Facebook waay markaasay ku tiri nacam dee qof xun inaad tahay waan ogaa laakiin qof saa u xun inaad tahay maan ogeyn marka haddii iyadu xilligaa jacayl uu ka dhamaaday laakiin isaga iska dhabaysay dee qisadii biiga sheekay isagoo heesii tumaya waay war tanaad tumaysa jooji waan dhigay tanaaba hees kale tanaaba hees kalaan ku dhigay waay tanaaba dee la tumayaayo waay iyo wallahi waaba rabiba waay marka waa sida aawadeed waxaan afka canfariga oo afka cafarta ugu bilaabay gabadhu afka canfariga ay fahmaysay iyo Soomaaliga ugu dhextar marka wixii baan isugu laaqay cafarkiisa si gabadhii bal message u gaari kara dee ma fahanti cawaalo inta ugu badan heesaha heesa waxa jira iyagu laftirkoodu aad isku jir ka dhigtay ma iska jeceshay ni aanu kala jarada waan iska jeclay baan sheegay ni kala jarada bal way heesa cod ahaan adigu qaaday habibi ku xadhan laabtayda hayaati ku nool xiskayga isweeri xaashe igamaad geyin xalmeeri inaad xanuun martaa
adoo i xasiliyayo i xanaaneeya i xaq dhowro ka jira xindhib dhexdeena anaa xumaado beenu xadreeye kumana xaq dhowrin xabiibi ku xaqdhan laftayda xayaati وكن نور حسكيجاي سويت شركة وحلية شركة وحلية نم محمد العقوي وقت هي سيد كانوا قتش علي هدي كوسا حد اللهيد ويسكفي على أركسانة كيستا عمسائل ويا إنسانا هي ويدها مركانس كم تشيرو اللي نيقباي ناد حدين شرين إفكانو لشتاليو عرو جعلكو بيا waraad baad u mahadsantihiin caaw jacayl baan dhadhamaynaa macal dadkeena daawanaya macal kuwii wax duubayay barkhad naasiriye kay ka mid yihiin dhammaantiinba naga daldalaya idinkana waan idiin mahad celinayaa dee intaasuu kusoo gebagabaynaynaa tan iyo tan isugu imaan doona nabadgelyo warniga gabadhan hadda subscribe